على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حووينا حسبك كلمية قدوميها حسبك حبنها وزيرده برلمانك وإيلك دليرده حفلة المانتا فرديا دمانتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيرك مدحتوية محمود حاشي aad baan ugu maandaqay sidii ragga horeba ay u sheegeen oo maanta munaasabaddan iyo maamuuskan inoo sameeyay aad buu mahadsan yahay. xafladda haweenka loo qabtay oo ah haweenweynii xusbiga kulmiye oo ah lafdhabartii xusbiga labada baal ee uu xusbigu ku duulaa midna waa haweenka midna waa dhalinyarada hablaha halkan fadhiya bilicda san waa la wada garanayaa intay kulmiye soo joogeen kuwa yaryar ee daayartii kulmiye markii la asaasay may gaadhin inay footeeyaan waa xusbiga iska daba dhalanaya aad baan u soo dhaweynaynaa. inta kaliya odhanaya waxa weeye waxaynu u baahannahay waa dhab hadda halkii maxamuud xaashi ay ka sheegeen innaku waxaynu nahay xusbul xaakimkii baynu nahay xusbi mucaarid muddo dheerna soo maray baynu nahayoo mucaaridkana waan naqaanaa xusbi iminka intii in leegoo 7 sannadood xukunka dalka soo hayayna waynu nahay rajada doorashada xusbiga sugayana waynu nahay. haddii aad taariikhda dib ugu noqotaan kulmiye doorashadii 2002 ee golaha deegaanka iyo tii 2003 iyo tii baarlamaanka 2005 iyo tii maxaanku dhahdaaye doorashadii 2012 waa xusbiga qura ee codkiisu uu korayay ilaa uu gaadhay 8% buu ka bilaabay 50% 4 iyo 9 iyo jarjarna wuu gaadhay. waxaan rajaynayaa tanna intii baynu ka sii badinaynaa soo maaha. arrinta imika taallaa waxa weeye tartanka xusbiyada innaku kulmiya haddii aynu nahay waxaynu isfaraynaa waxa weeye in asluubteeda iyo adaabteeda iyo dulqaadkeeda inaynu intaba yeelanno. waa layna maagayaa waa layna xagxaganayaa ayaamahan waxaa maqlaysaan xamar bay u socdaan booba maalin la weydiiyo waxa la yidhi arrinkaa iyo xamar iyo waxaa soo taadameera loo sheeg buu yidhi gabi hatraawileeyo ku halqabsaday. arrinkaa innaku waxaynu leenahay tartan doorasho ah oo xor ah oo xalaal ah oo uu hogaaminayo komishanku qarankaynu diyaar u nahay kaasaynu diyaargaroobaynaa. aflagaado badan baa socota ayaantan innaku miyaynu geynaa aflagaadada waaynu isfaraynaa inaan qof kulmiyihii qof musharaxa caayaya mid cid kale caayaya qof kulmiyihii uma jawaabi karo. innaku arrinkaa waynu ka sarraynaa waynu ka bisilahay. arrinkan kale maxamuud xaashi uu ka hadlayay waa sheeko anigee maxamuud aad si fiican baanu u shaqaynaa isna waa wasiirkayga biyo culusta fadhiya ee madaxtooyada fadhiya anna odagiisa xusbiga jooga baan ahay. arrinkanna waannu ka wada hadalnaa annagoo badanna waannu ka sheekaysanaa. sheekadu waxa weeye hadda iminka maalintii dhoweyd jabuuti baannu ka nimi shalayto hodhaalkan imberial aanu fadhiisanaanu xertayadii aanu wada fadhiisan jiray isugu nimiyo dabadeedna ninbaa wuxuu igu yidhi qoladii waddan waxay dhahdeen muuse iyo maxamed kaahin baa islaayay. dabadeedna wuxuu yidhi qoladii baan waxaan ku yidhi waabuu maqayoo jabuuti buu jira. marka sheekada socota iminka waxa weeye kulmiye in la kala shakisiiyo in sheekooyin noocaasa la sameeyo in arrimo badan oo noocaasa la sameeyo yaynaan innaku ku habsaamayno. hadda maalintii dhowito dee arrintan waa la go'aamiyeeyo mowqifka doorashada annagiyo qolada wadani meel baanu kala taagnayn laakiin waynu diyaargaroobaynaa. waxaynu aad ugu ballamaynaa xilli adag baynu joognaa xilli abaareed baynu joognaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay abaarta inaga saaro
ayaantii horena aad baynu dardar gelinay imikana waxaynu isfaraynaa oo dumarka aad u dadaal badane abaartii tabaruceedii iyo ururinteedii iyo raashinkeedii iyo dhaqaalaheedii waa inaynu imikana dib u bilowna kelmadan ku soo ururinaya waxa weeye dabaylaha dhaca qaarna waxay ka dhacaan koonfur oo waqooyi bay u socdaan qaarna waxay ka dhacaan waqooyi bay ka yimaadaan oo hawd bay u socdaan oo waxaynu idhahnaa dabayl jiilaasha iyo dabaysha xagaagii dabaysha dhulkan carabtu degtee saxraaga ka dhaca daqiiqadna xaggaasay u socotaa kelmaddaa waxaan uga jeedaa siyaasiyiintu badhna wuxuu leeyahay midab siyaasiya oo keliya oo lagu garto midna wuxuu leeyahay midabo fara badan cabdicasiis waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inaanu xusbigiisii ka tegin inuu ka tagana cidibo uguma garaabayninoo soomaalida maamaaloo waxaa la yidhaahdaa awr laba la siiyey dhal wanaag ma ku faanbaa haddii awrka laba halaadba loo quudhay oo la yidhaahdo nirga wanaagsan buu dhalay dee halka ammaani kuma jirto waa raggii xusbiga asaasay oo isaga iyo raggii kaleba xusbigiisii unbay joogeen waxaynu innaku ku ballamaynaa kulmiyahanuun baynu nahay waynakii 93kii dadaalay 2003dii ee doorashadii aynu isku qancinnay waa layna boobay ee 80 cod laynagaga helay nin baarlamaanka Nigeria ku jiray oo doorashadii dambe inoo yimi baa markaanu burcana la joogo goobjoogayaashii buu ahaa wuxuu yidhi cid iga rumaysanaysaa ma jirto Nigeria markaan noqdo xusbi Afrika jooga oo 80 cod lagaga helay ayaan dagaalamina iska aqbalay waa dalka Afrika ugu badan ugu jaamacad badan ugu aqoonyahan badan ugu batroolka badan wuxuu yidhi layga aqbali maayo miyaynu dhimanay soo kulmiyihii ma nihin amaantana socsocodku innaka waa inaga xaaraan karuun baynu ahaanaynaa kulmiye intaan isfaraynaa iskaga tegaynaa waxa weeye xusbinimada iyo midnimada ha la ilaaliyo inantii xildhibaanka ahayd waxay nagu tiri dhallinyaradii haweenka iyo qabyaaladda ha la iska daayo qabyaaladanu innaka waa kulmiye sow maaha ciddii qabyaalad kale ku faanaysay xoolo ku soo xoreynaysa iyagay jirtaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasiir adigana martiqaadkii waynu kaa guddoonnay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kolle wasiirada kalena waynu ku leenahay oo iyaguna way isu soo keen xaamanayaan waa mahadsantihiin